ceelka barameed baan gelaynaa biyo la hubaa waa baran baa maqashay horta ceelkii barameed waa kan maadaama aynu ku jirnay ilaa 3 gu oo abaara ceelkii barameed horta waa almaraa ceelkii barameed waa kan ilaa ka soo gaari jira labadiisii qalcadoodna waa kuwan daarihii caawo dhalato midna waxa la aasaasay 1912 midna waxa la aasaasay 1913 taariikhda waa soo wadnaa ceelka si faahfaahsan baan u geli doonaa halkana ceelka laga digaa hadda waxa ka dhaansada dad kooban oo ay ka mid yihiin baabuurta noocyada kala duwan ma soo raaca saaxiibayaal horta caawa horta ceelkii barameed waa kan markuu guran yahay ceelku ceel aad weyn halka waxa ku qoran maxamed rasuulullah iyo quraal kale gudaha ah caawa waxa rabnaa horta ceelka inaan gallo halka aan ka daadigno lug baana noo taala dhulka hoostiisa caawa ceelkii barameed oo weligaa taqaanay baan waxaan rabnaa inaan tooshashkay intaan qaadano oo iska sii weesa qaadano oo ma taqaanaa ducada jinka sii akhrisano baan rabnaa inaan gallo sababtoo ah ceelka dad badan waxay leeyihiin sida taariikhaha badan ay ku soo warareen in meelaha qaarkood jin joogo in 6 bilood markuu maqnaa oo waada soo baxay isagoo oo raamaystay oo caadi ah wuxuu ka faafay togo kale iyo dhul kale iyo dhirbu cuni jiray halkan sababtoo ah waxa ku dareemaysaa xataa in barnaamijkaas xoojinaysa inay sax tahay roobab baa waxay ka daayaan meelaha laftiga ku dhow iyo meel ceel ku dhow dabadeetana baran oo biyo soo buuxsay markasa halkan horta in tog maro baa ku cadba laakiin tog la sheegayo meesha mara caawan waxa beejin doonaa markaan aniga saaxiibkii maxamed tulux iyo juxa oo ceelka ilaaliyaan horta caawa gallo caawa hadda tooshash baan doonaynaa dharka iska soo bedelaynaa meeshaan dharkan labiska lagu geli karo dhiiri weeye meelaha qaarkood oo siisibanaysa kaba diyaarsan oo meel dhulka hoostiisa ah marka waxa u baahan tahay taxadir dheeriya sidoo kale waxaanu ma taqaanaa aanu ka digaynaa inaan qofkiisa iska gelin meeshaan laakiin anagu horta baa xarmayna ka war doono meeshay tahay rag yaqaan oo khabiir ah baa horta ka xaynaya qofkiisa inuu degdegin horta ceelka iska gelin ceelku sidoo kale wuxuu qabaa dad badan baa ku dhintay oo reer baramada markii hore marka aad buu ceelku weyn yahay aragtaan dhulka halkan ranji uu leeyahay geel baa lagu xireen jiray sidaadaba marka meesha caawa marayno waa halkan caawa meesha marayno waa halkan caawa safarka uu ka bilaaban doonaa insha Allah barta hadda ayna kala soo hadlay horta caawa safarka uu ka bilaaban doonaa halka hadda biyaha ku jira oo biyo kooban oo la dhaansado oo ma taqaanaa kharaara oo ceelkii barwa biyahoodii marka safarkan caawa halkan uu ka bilaabanayaa biyahana dhaafayna qayb kala galina dabeetana tog caadi ah baa u tageena oo caadi u soconayna inagoo taagan ma socon doona insha Allah idinku caawan waa socon doona tooshashka iyo caawa soo qaadaysan tuluxu soo diyaar garow haddana waa iska saacid bilaaysan waa iska tagina A few moments later marka hadda hoos baa u degan ninka si toojkiisa wataa ducadii qof kasta akhrinaya a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim marka waa tawakkalina noocan waa kahafka caadiga marka waa degna bismillaahi waxaan galnay marino mugdi ah godad qarso iyo godad biyood aanan ogeyn halka ay ku dhamaanayo waxaan soconay in ka badan 300 mitir oo dhulka hoostiisa haddaan biyaha gelaynaa waa aniga hadda cagaha biyaha dhulka geliyay haddaan si toos ah u gelinaa kaba halkaas ugu tageynaa dhulku waa nadiif la sheegay laakiin waa ogaan doonaa haddii khatar jirto bilaabno anaga biyaha hadda dhex marayna bismillaahi rahmaani rahiim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim توسعوا دينا عمي أسوبة دينا مساعد waxaan go'aansanay inaan galno gudaha ceelka meel ay adag tahay in la gaaro meel ay mugdi iyo cabsi badan ka jirto tallaabo kasta waxa ay ahayd taxadir waxaana hage noo ahaa maxamuud iyo maxamed balse siibasho fiiqyada dhagaxa iyo ceelku laqaba intuba waa halis kaamad saaruhu yeesho ku siibanaysan ku istaagina ku siibanaysan idin saaran iska ilaaliya yeesho ku siibanaysan ku istaagina ku siibanaysan idin bismillaahi rahmaan hadda waxaan maraynaa meel dhexe oo hadda waxaan sii soconay masaafo aad u dheer ma sii soconay waxaan u tagnay ila biyo oo dhacaya waxaan u tagnay dhagaxyo inta la leego soo dumay hadda ka hor halkan biyo aad u fara badan baa soo mara marka qofka baran yaqaan ceelka inta hore uu ka yaqaan biyo soo buuxiyaa inta kale ma yaqaan laakiin caaw adduun kale baa ma tagnayba nakeen soo soco
markii aan gudaha u sii galnay waxaan la kulannay ceelal waaweyn oo ku liqi kara haddaanan ka taxadirayn. waxaan aragnay jaranjarooyin dabiici ah oo biyuhu qodeen, waxaan aragnay godad dhaadheer oo mugdigu laqay, iyo togag waaweyn oo biyuhu ay qulqulayaan. dhulka hoostiisa meel aan qoraxda weligeed gaadhin, biyuhuna way weli nool yihiin. waxay ahayd adduun kale oo qarsoon. socodkani ma ahayn mid sahlan. dhoobada ayaa mararka qaar cagaha naga qabsanaysay, fiiqyada dhagaxa ayaa halis ahaa, siibashada ayaa fududayd, mugdiguna waxa uu kaa qaadaa dareenka masaafada. mararka qaarkood waxa keliya ee aad maqlayso waa codka biyaha iyo neefta kooxdeenna. laakiin tallaabo kasta oo aan qaadnay waxay noo furtay sir cusub. ceelka badhan ma aha oo keliya meel biyo laga cabo, waa kayd taariikheed, waa mucjiso dabiici ah, waana qayb ka mid ah dhaxalka Soomaaliya. inkastoo abaarihii dambe ee isdaba joogga ahaa saamayn biyaha ceelka ku yeesheen, haddana gudaha dhulka hoostiisa waxaa ku yaalla ilo biyo ah, ceelal waaweyn iyo nolol qarsoon oo la yaab leh, oo ayba fududayd in ceelka laga soo mudo xagga sare. safarkani waxa uu ahaa mid aan wax badan ku soo xaqiijinay, waxaana ogaanin in ceelka gudihiisa uu dumay, ilo badan oo soconayana dhagaxyo xireen, dhoobo iyo ciido badan oo godku keenana ayaa iyana xidhnay, taas oo sabab u noqotay inaanay biyuhu soo gaarin xagga hore ee laga dhaansado biyaha. godkii caawo dhan baa horta soconay saaxiibaday. ninka kale magacii maxamed Soomaa, waxaan la soo maxamed, laba maxamed iyo maxamuud baan ahayn, iyo anoo bara cadaani ah. waxaanu maraynaa bartamaha magaalada Baran, hadda xirta dhanka kur ilaalo hadda ku dhownahay oo dhulka xagga hoose ah. marka caawa waa socon lahayn oo dhan, laakiin waxaan soo celiyay biyaha. biyihii baan liqayaa aniga. hadda biyo waxay ii joogaan halka xundurta bay ii joogaan. marka haddaan hadda sii dhaafno, dhoobaduna waa kugu dhegaysaa, kulku wuu sii badanayaa, xaggaana waa sii tahay. marka caawa waxaan soo tijaabinay dhul aan hore loo arag oo laakiin Baran dhexdeeda ah. halkan biyihii ugu badnaa baa ku jira. Baranta biyaha la'ayd oo muddada biyaha la'ayd waxay halkaan inay dalooshadaan, oo halkaan riig ay ka soo dalooshadaan. halkaan marka waxa la ogaan doonaa cabirka inta ay leeg tahay. laakiin godku hadda saa aragtaan aad buu u weyn yahay, biyood buu leeyahay. waxaas inay soo duwaan waa halis. waxa daad xoor weey, waxaas daadka soo qaaday. marka waxaan la garanayn godkaan meesha uu ka yimaado. tusaale dadku inta badan waxay dhahaan meelo kala duwan markii roob ka da'o iyadoo ceelkaan baramaad soo buuxsamay baa la arkaa. marka sida god qaboobe oo kale, god Mareykan oo kale, god qaboobe oo kale oo iyaguna saas oo kale u daloolay biyo ka soo galaan, dabeetana togan oo dhan biyo soo maraan. marka saasa ceelka barameed halkaas baa ceelka barameed yahay. laakiin meesha anagu hadda waxaan soo aragnay dun caadi ah oo la degi jiray, oo haddii doonaan quruumo degi jireen, oo dad hore haddii doonaan degi jireen, xataa waxbaa ku qorqoran. maadaama habeen tahay aad baan hadda uga cabsoonay, uga baqnay. raggii saaxiibada iyo khabiirada halkaan ay ka noqdeen, sababtoo ah halkaan lama dhaafi karo. marka caawa waxaan soo ogaanay dunin kale oo Baran ku taal oo biyo miirana oo inaba aan caadi ahayn. marka caawa markii ugu horeysay iyo raggii ugu horeysay halkaan soo galo oo soo duuba, waana markii ugu horeysay kaamirooyinka noocan ay soo gaaraan gudaha, annaga oo bal tijaabinaynay togaan inta uu leeyahay, biyaha ku jira, xataa meelaha qaarkood ilaa ku furanba. sida uu noo sheegay waxa weeyaan hoos ilaaba ka dhacaya. saa maxamuud saa uu noo sheegay, maxamuud oo ah dadka ceelka mas'uulka ka ah, ilaaba iska dhacaya, saa uu qulqulaya. ilaahana hadda waa tan soo marnay. biyahan sideeda ayaga baa la cabi karaa, saa ayaga ah, saa ayaga baa cabi kartaa. waxaan kaloo ka digaynaa in togaan uu yahay tog aad u khatar badan, biyo badani ku jiraan oo dadka liqayaan, sidoo kale dhoobo ku qabsanaysa, dhagax ku dilayo oo seefa buu leeyahay. marka waxaan ka digaynaa inaan cid dambe soo gelin. annagu hadda waxaan u soo eegaynay bal sida uu yahay iyo qaabka iyo horta inaan soo tijaabino. tijaabina naga ahayd iyo mataqaana inaan soo aragno dhulkaan cusub oo saaxiibadii hore ugu sheegeen. runtii caawana waa soo aragnay, la yaab bay leedahay runtii, wax laga sheekeyn karo inaba maaha. marka bal inawada dib baan u laabanaynaa, ilaahay baan sii tawakalaynaa. waxa weeyaan ducadaan haysanaa, waa soo jacaylka ma ku bilaaba
ها مكبرة مكبرة جعلك مكوبرة maxamed tuluxu waa soo guuleysanay horta ceelkii iyo togii weynaa waa ka soo baxnay hadda waxaan nimaadnay aagii reer barmeedku yaqaaneen halkaani waa meesha laga dhaamiyo hadda oo ceelku joogo laakiin roobku hadduu qabto wixii aan soo aragnay oo dhan ba intay soo buuxsamaan bay banaankaas ba reer barmeedku yaqaanaa ceelka biyo la hubaa waa baranay reer barmeedku yaqaanaa waa afkaa hore keliya marka hadda banaanka u soo baxnay hadda dayixii waa kana dayixii waa kaas ceelka banaankiisa hadda joognaa waa iga dambaysaa daartii astaanta wahayd ceelka caawdhalato 1913 la dhisay iyo tangeeska kale oo la dhisay 1912 marka banaankaan nimaadnay jawi baa hadda soo galay kale oo qabow oo markii hore aan ka tagnay runtii hadda banaanka ilaahay nabad keenay tulu hadda waa kan wax iga duubaya maxamed isna wuu soo baxay iyo ninkii la oran jiray maxamuud intii hadda banaanka joognaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin waa qoyanahay hadda qabow badan saayidana soo galay xilligan oo kale boosaas aad buu kulushahay laas qoray magaalada xeebooyinkan aad buu kulushahay anaga laakiin qabow haysan alxamdulillah rabbil caalamiin marka halkan hadda tulu waxaan taaganahay buu ceelka reer barmoodku yaqaaniin waa halkan ceelka reer barmoodku yaqaaniin halkan uu ka bilowdaa isagu oo intaas soo buuxsanta ilaa halka hadda uu ka dhaaminayo ninka Rodo Maxamuud intaas soo buuxsanta iyadoo maalinaan waxaan ku tusanaa drone isagoo buuxana insha Allah soo qaban doonaa marka maasin